السلام عليكم kusoo dhawaada YouTube-keena Maareeya Channel magaaladan sikadiisa waxa uu gilgilay qalalaaso aad u daran dawayshu waxa ay si aad u daran u babinaysay wadooyinka ugu horeyntii qof walba waxa uu maleynayay in uu dhacay dhul gariir kadib awood aad u daran ayaa dhulka si xoog leh u gilgilaya Dale sida ugu dhaqsiyaha badan ayuu u argagaxay lo'dii hortiisa taagneed waxay u kala go'day laba qaybood isaga ma wax qiyaali ah ayuu arkaya isaga waa uu aamini waayay in arintan ay dhab tahay ilaa uu ka taabtay lo'dii dhiigeeda inta kadib waxa uu gacantiisa saaraya hortiisa markii uu taabtay gidaarkii hawada isaga sidoo kale waxa uu dareemayaa danab koronto aqalka yar ee dhanka kale xiga xitaa waxa uu kala go'ay laba qaybood calaamada calaacal gaduudan ayaa ku dhex sawirmaysa hawada dhexdeeda inaan la yiraahdo Joe ayaa si cajiib leh ugu dhiman rabay markii uu taabtay gidaarkii isaga xitaa koronto ayaa ku dhagtay xitaa tukayaal cirka duulaya ayaa qoorta ka wada jabay sida muuqato gidaarka hawada waa mid aad uga dheer inta uu isaga moodayay kadib diyaarad ayaa korkiisa maraysa diyaaradii waxay ku dhacaysaa gidaarkii isla markiina waa ay qarxaysaa Joe wali waxa uu taagan yahay goobtii isagoo fiirinaya diyaaradii burburtay nasiib wanaag Dale ayaa awood u yeeshay in uu badbaadiyo noloshiisa iyadoo la wada eegaya qiiqa madow ee diyaaradii hawada maraysay qof walba waxba kama oga waxa dhacay dhammaan signaaladii internetka waa ay wada dameen haweeney gaari ku dhex kaxaynaysa highway-ga magaalo yar waqti xaadirka taraag aad u weyn ayaa soo jarayay wadada kadib taraagii waxa burburiyay gidaarkii hawada isla markiiba haweeneydii gaariga kaxaynaysay waxa ay riixday bareegii gaariga ugu dambeyntii iyaga waxa ay ka badbaadeen musiibada taraagii madaxiisana waxa uu gidaarkii ugu burburay si aad u daran dad badan ayaa aad uga naxay markii ay arkeen arintan gabadhiina istaaga ayay ka dhacday oo waa ay suuxday dhanka kale gaari dabdamiye ah ayaa soo galay magaaladii Dale waxa uu arkayaa xaaladan waxa uuna u soo degdegayaa inuu istaajiyo gaarigu waxa uu socdaa si aad u xawaaro sareeya waqtigii ugu haboona ayuu dabdamiyihii joojiyay gaarigii si lama filaan ah darawalkii waxa uu isku dayayaa in Dale uu wajiga ka feero balse isagu waxa uu ku dhacay gidaarkii hawada sababtoo ah gidaarku waxa uu sababayaa in labada qof aysan ismaqlin Dale kaliya waxa uu la xiriiri karaa in qoraal uu qoro booliiskii magaalada waa ay qasaareen markii ay halka yimaadeen waxay halka ku magacaaween Airwall Dam waxa talo la siiyay dadkii magaaladii joogay oo idil kuwa aan nasiibka u yeelan in ay maqlaan talada iyagu xitaa waxa ay u kala go'een laba qaybood sida ugu dhaqsiyaha badan generalistayaal badan iyo askar ayaa halka yimid militarigii ayaa sida ugu dhaqsiyaha badan xiray halka saynis yahano badan ayaa qalab baaritaan ah u adeegsaday gidaarkii kadib waxa ay ku shuween biyo si ay u tijaabiyaan gidaarka baaritaano yar kadib kaliya biyuhu ma dhaxgalayo gidaarka hawada xitaa iyagoo u adeegsaday dareero wax dhaxliya ma uusan dhaxgalin gidaarkii hawada dadku waxay xaqiiqsadeen in magaaladii oo idil uu xiray gidaarkii hawada nin lagu magacaabo sheriff ayaa si cajiib oo lama filaan ah gacantiisa u saaray gidaarkii hawada isla markii uu gacantiisa saarayna waxa uu dareemay arin la yaab leh isla markiiba waxa qarxay wadnihiisa halka ayuuna ku geeriyooday ninkii kadib markii dhacdadani ay dhacday dadkii magaalada oo idil waa ay la fajaceen qof ayaa isku dayay in god uu ka hoos qodo gidaarkii hawada balse isaga waxa ka celiyay jaarkii sababtoo ah waxay ogaayeen wixii ku dhacay sheriff iyagu waxay ogaadeen mashiinka hadii uu taabto gidaarka hawada in uu qarxayo sida awgeed ma qodi karaan godka kadib waxay isku dayayaan in bamba ay ku qarxiyaan meel u jirta ilaa iyo 100 mitir iyagu ma aysan filanin in gidaarka hawada ilaa iyo intaasoo dhirir uu dhulka ku hoos jiro tani waxay u muuqataa dhirir ahaan kaliya in aysan aad u dheerayn sidoo kale inta aan muuqan ee aan la arkin ayaa aad u badan kadib markii uu taabtay gidaarkii hawada nalkii ifayay sida ugu dhaqsiyaha badan ayuu u qarxay hadeertaan la joogo qof ayaa miirka beelay isagoo xanaaqsan waxa uu laba xabadood ku tuuray gidaarkii hawada balse xabadihii isaga ayay ku soo laabteen halka ayuuna ku geeriyooday falkani qof walba waxa uu dareensiiyay walwal aad u daran kani waa wax aan la arkayn balse waa derbi hawo ee la daalacan karo magaaladii oo idil waa ay ka go'day adduunkii dadku sidan ayay u noolaayeen 6 maalmood biyihii iyo cuntadii magaalada waa la burburiyay Dale waxa uu ku fakiray in harada uu aado si uu biyo uga soo helo bedelkeed waxa uu haradii ku soo arkay kaluumo cadcad oo fara badan sambal ahaan ama tijaabo ahaan ayay biyo yar halka uga soo qaadeen waxay ogaadeen in biyuhu uu qabsan karo dabka waxay baareen in gidaarka hawada uu jari karo tuubada waxay ogaadeen kiimika qulqulaya in uu ka buuxo haradii oo idil waqti xaadirka militarigii banaanka joogay waxa ay bilaabeen in ay qaxaan ama ay guuraan dad badan waxa ay u maleeyeen in dawladii oo idil ay dibadda u baxday iyaguna halka looga tagay xaaladiina sida ugu dhaqsiyaha badan faraha ay ka sii baxday dadkii waxa ay jajabinayaan supermarketyadii iyagoon ka fikirin waxay sii qaadanayaan wixii cunto iyo biyo soo haray xitaa dadkii dariska ahaa cadow
ayay noqdeen oo waxay soo daabulanayaan iyagoo dagaalamaya alaabtii supermarketka ayadoo quus la taagan yahay. booliiskii magaalada ayaa isticmaalay gaaska dadka ka ilmaysiiya, balse arrintan ma aysan joojin iyaga. iyadu ma lahan Joyce aan ahayn in xabad ay rido. nasiib wanaag, ka hor inta aysan iyadu xabadda ridin, roob ayaa cirka ka soo da'ay. roobkii waxa uu xanaaqa ka qafiifiyey dadkii, balse gidaarkii hawada ma uusan qarsoomin. goobtani waa duni ka baxsan dunida kale. waxay u muuqataa in gidaarka hawada uu leeyahay cimilo yar oo isaga u gaar ah. haweenkii dadka weli waxa ay keedsanayaan biyihii. waagii markii uu beriyey, militarigu waxa uu keenay qaraabadii dibadda ka jirtay qof waliba, sababtoo ah labada dhinacba isma maqlayaan codadkooda. keliya waxay ku wada xiriiri karaan qoraal iyo calaamado ay isku fahmayaan. waxay u muuqataa in dib ay u midoobayaan qoysaska iyo asxaabta. balse Dale waxa uu dareemay khatar. waxa uu helay haweenay awoodda in dibnaheeda ay wax ku sharaxdo si ay ula xiriiraan dunida dibaddeeda. askarigii waxa uu sheegay in gidaarka hawada uu argagax ku sababayo dunida dibaddeeda. militarigii waxay go'aansadeen in ay isticmaalaan bam nukliyeer ah si ay u burburiyaan gidaarkan hawada. dhammaan dadkii u dhowaa magaalada waa in ay qaxaan si cimilada dadka gudaha ku jira ay u badbaadaan. waxaa la isweydiiyey in dadka gudaha ku jira ay badbaadayaan ama in kale, balse waa nasiibkooda haddii ay badbaadayaan ama aysan badbaadaynba. kadib markii ay maqleen wararkan, qof waliba waxa uu samaystay gabaad si uu uga badbaado geeridan socota. waxay u muuqdaan kuwa aan innaba cabsanayn, keliya waxay dareemayaan murugo dhanka qoyskooda ah. bambadii nukliyeerka ayaa laga soo tuuray meel sare. gidaarkii waa la garaacay, wuxuuna u qarxay si aad u xoogan. si kastaba ha ahaatee, natiijadu waa ay ka duwaneed sida qof waliba uu rajaynayay. keliya gidaarkii hawada waxba ma gaarin, sidoo kale ma aysan maqlin wax cod ah. waxay kala garan waayeen in ay murugoodaan ama ay mahad celiyaan. gidaarka hawada aad ayuu u xoogan yahay. tanina waxay la micno tahay in weligooda aysan halkan ka bixi doonin. magaaladii banaanka ahayd gebi ahaanba waxaa burburiyey qaraxii. dhulku waxa uu fidsanaa ilaa indhuhu inta ay qabanayaan. banaanka wax kale kama jirin oo aan ka ahayn burbur. dhacdadani qof walba waxa ay ka dhigtay mar kale kuwa aad u niyad jaba, balse xaaladdu aad ayay uga sii dartay. Joe iyo Angie ma aysan ogeyn waxa ay ka dhex qabanayaan kaymaha. si kadisa waxay heleen wax u samaysan sida tuurka oo kale. Angie gacanta ayay ku taabatay, balse danab koronto ayaa soo celiyey. iyagoon mar labaad ka fikirin waxa ay halkaa ka qaadeen caleemaha. kadib biyo ayay raacsiiyeen. gidaar yar ayaa hortooda ka soo muuqday. sidoo kale gidaarkii gudihiisa waxaa ku dhex jiray ukun madow. Angie waxa ay ku fikirtay in ukunta madow ay kontaroolayso gidaarka ku hareeraysan magaalada oo idil. intaa kadib iyadu waxa ay tidhi hello. markii ay wax jawaab ah ka heli weyday ukuntii madoobayd, si wada jir ah waxay gacantooda u saareen dhanka sare. kadib dareen cajiib ah ayaa dhacay. Angie waxay aragtay hooyadeed oo hortaagan. markii ay gacantooda ka qaadeen hooyadii, mar kale ayay baxday. Angie si aan caadi ahayn waxa ay dareentay dareen halis ah. sidaa daraaddeed waxay islamarkiiba u oroday gurigii. sida la filayay waxbaa qaldan. hooyadeed waxaa ku soo booday wadna xanuun, maadaama adeegyada caafimaad ee magaaladu ay yar yihiin. hooyadeed waqti kuma qaadan in ay dhimato. Angie waxay u timid gidaarkii hawada iyadoo ku jidha murugo iyo walbahaar. waxay sii weydiisay waxa uu rabo in uu sameeyo. waqtil xaadirka, ukuntii madoobeed ee keenta ku dhex jirtay waxay xaqiiqdii samaysay falcelin. maalintii xigtay, ukun yar oo madow ayay waxay ku dhex arkeen qolka maqaasiinka ee gurigooda. waxa uu ahaa ukun yar oo madow oo aad u cajiib badan. 3 qof ayaa gacmahooda saaray gidaarkii ukunta ku dhex jidhay. markaa waxaa soo muuqday sawirka baabacad afaraad oo halkaa ka maqan. kadib waxay heleen saaxiibkoodii kale. haddeertaan waa cajiib. gidaarkii yaraa waa sida fingerprint lock. markii la saaray baabacadii afaraad, iftiinkii bingiga ahaa ee gudaha ku jiray sida ugu dhaqsiyaha badan ayuu isugu soo aruuray. si kadis ah iftiinkii banaanka ayuu u soo baxay. isla markaa kadib ukunta yar ee madoobeyd waxay sii daysay xidiga yaryar oo aad u fara badan. inkastoo ay u muuqato mid aad u qurux badan, balse ma aysan xalin wax mushkilad ah. maalintii xigtay, balambaalis ayaa u timid gidaarkii yaraa. waxay u halgamaysaa in ay jibiso gidaarkii iyadoo garaacaysa. wasakh yar oo madow ayaa soo muuqday. iyaga kama celin karaan. xoogaa yar kadib, balambaalistii ma aysan falcelin. isla markaa kadib, gidaarka hawada xitaa banaanka ayuu ka madoobaaday. jaan yar oo madow ayaa si tartiib tartiib ah u daboolay dhammaan gidaarkii hawada. dadka cabsidooda si dhaqsi leh ayay aad ugu faaftay. kacsanaanta hawada heerkulka gudaha ee gidaarka waxa ay ka dhigtay mid aad u qabow badan. ilbiriqsi yar kadib, dhammaan magaaladii waxaa daboolay mugdi aad u daran. waxaa laga yaabaa
in dhammaadkii la gaaray. Qof waliba waxa uu galay kaniisadii si uu u ducaysto. Waxay ku fakareen in balanbaalistii ay banaanka u saaraan. Waqti xaadirkan, 4 baabacad oo birinti ayaa ka soo muuqday gidaarka yar ee madooba. Qof waliba baabacadiisa ayuu saaray si wada jir ah iyagoon aad uga fikirin. Ugu horeyntii gidaarkii hawada waxa uu isku bedelay iftiin cad oo aad u daran. Kadib gaballo aad u yar ayuu u kala jabay. Nasiib wanaag, balanbaalistii gudaha ku jidhay waa ay nooshahay, balse kama soo wareegan 3 sakan ka hor qof walba inta uu faraxsanaa. Ukuntii madoobeed waxay u muuqatay mid aan caadi ahayn. Way lulatay waxayna soo daysay iftiin dhalanteed ah. Waxay u muuqatay mid qarxi rabta. Waxaa soo dumi rabay duulaan gabaad oo cirka ah. Qof waliba waxa uu diyaar garoobay in uu cararo, balse Dale saaxiibtii oo aan wax cabsi ah ka qabin dhimashada ayaa kor u qaaday ukuntii. Si la yaab leh, xaqiiqdii dhulgariirkii waa uu istaagay. Xitaa waxay ku baraarugtay in balanbaalistii ay agteeda joogto, sababtoo ah waxay dhowr jeer taabatay gidaarkii yaraa. Kama aysan helin warbixin muhiim ah. Waxay u qaadeen ukuntii madoobeed kaymihii ay ka keeneen markii hore. Si lama filaan ah waxay halkaa ku arkeen sawirka Angie hooyadeeda, balse iyada waxay u sheegtay in ay tahay alien. Ayada waxay soo qaadatay weji u eg Angie hooyadeeda si uu ugu fududaado xidhiidhkooda. Gidaarka hawada ee magaalada ku hareeraysan waa tijaabo lagu samaynayo bini'aadamnimadooda. Hadda ukunta waxaad ku ridaa biyaha. Gidaarka hawada ee magaalada ku hareeraysan waa uu furmi doonaa. Sidaa daraaddeed Dale saaxiibtiisa waxay ku tuurtay bartamaha harada. Ilbiriqsi kadib, xidiga binki ah oo ku dhex jiray ukuntii madoobeed ayaa banaanka uga soo baxay biyihii. Si tartiib ah ayay dhanka sare ugu baxeen iyagoo ifaya, sida iyagoo u dhacaya xidiga gurigooda u socda oo kale. Xitaa dadkii magaalada waxay la yaabeen aragtidan la yaabka leh. Ugu dambeyntii waxay isku ururiyeen gidaarkii hawada. Mugdigii waxa uu isku bedelay iftiin aad u xoogan, balse gidaarkii hawada ma uusan qarsoomin. Ugu dambeyn, like saar oo subscribe dheh si aad ula socoto muuqaaladeena xiga. Mahadsanid.